26 Juun xiisihii badnaa ee loo qabay sanadadii hore sanadkan ma jiro sida muuqata. Muxuu sanadkan kaga duwan yahay sanadihii hore? Intaan u guda galin barnaamijkan, haddii ay tahay markii kugu horeysay aad na soo booqato, waxaan ka codsanaynaa in aad nagu soo biirto muuqaalkana aad like noo saarto si uu meel dheer u gaaro. Mahadsan. 26 Juun iyo toddobaadka xorriyadda sidii sanadihii hore loo xiiseyn jiray sanadkan looma xiiseynayo sida muuqata. Waxaana baraha bulshada lagu arki jiray toddobaadyo ka hor in dhalinyarada ay aad u diyaar garoobaan oo ay muuqaalo isaga duubaan wadooyinka waaweyn ee magaalada, goobaha loo dalxiis tago iyo sidoo kale meelaha aad ku quruxda badan ee magaalada ku yaala. Ma jirto hadda xiiso badan oo loo qabo sida muuqata 26 Juun iyo waliba 1 Luulyo ama inta lagu guda jiro toddobaadka xorriyadda. Waxaa jira dhalinyaro qaar oo hadda social media gaar ahaan TikTok ku soo bandhigaya muuqaalo iyaga oo calanka xambaarsan oo waliba iska soo duubaya heesaha xorriyadda. Laakiin sidii hore ee loo xiiseyn jiray ama sanadihii hore sidii loo xiiseyn jiray sanadkan looma xiiseynayo. Dhinaca kale, dhalinyarada caanka ka ah aaladaha baraha bulshada gaar ahaan TikTok ee malaayiinka iyo kumanaanka qof ay ku xiran yihiin ayaa toddobaadyo ka hor waxa ay soo bandhigi jireen xiisaha ay u qabaan toddobaadka xorriyadda, iyagoo calankooda ku faani jiray, meelo qurux badanna ka soo muujin jiray. Balse sanadkan ma muuqato oo qofkii caanka ahaa iyo dhalinyaradii caanka ahayd ee malaayiinka iyo kumanaanka kun haysay waxa ay dib u dhigteen xiisihii ay u hayeen maalmaha xorriyadda. Magaalo madaxyada oo ay ugu horeyso magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, goobaha ganacsiga iyo goobaha dalxiiska waxaa lagu xiri jiray calanka maalmo ka hor toddobaadka xorriyadda. Inkastoo hadda aysan muuqan goobo badan oo ku xiran calamada, haddana waxaa muuqata in goobaha qaar ay weli ku dhagan yihiin sanadihii hore oo goor hore ay si diyaar garoobeen. Balse waxaa jirta in goobo waaweyn oo ganacsiyo oo wadooyinka ku yaala hareerihiisa aadna u qurxin jiray marka calanka lagu xiro sanadihii hore aysan hadda ku xirnayn. Sidoo kale, taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa war ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in ciidanka qaybihiisa kala duwan iyo dadka hubka ku dhaxaysa magaalada aysan ridi karin wax rasaas iyo hub ah marka la gaaro 6 saac habeenimo ama 12 habeenimo markaas oo uu dhacayo calan saarka. Marka la gaaro xiliyadan oo kale oo sanadihii hore uu ka xiiso badnaa, sanadkan waxaa dhici jirtay in xabado fara badan ay furaan ciidanka iyo dadka qaar ee magaalada hubka ku dhaxaysa, taas oo ay dhibaato ka soo gaari jirtay bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho.